السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وذولال تفسير القرآن الكريم كان فايدة سواء. Welcome to ELSA. ELSA is an artificial intelligence-powered pronunciation code. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا تذكي اللهم لا تقدموها كلاه رمرنا بين يدي الله ورسوله إلهي الرسول كهرتودا حقدمين إيدينكو قاع إلى أرنكا إلهي الرسول قاع وحكيد هذان كهر إيدينكو وحيدين قارها أوراننا وهقدمين واتقوا الله إلهي كعب صدى إن الله إلهي سميع عليم وحلبه ومقليا وحلبه وأكسوين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا ذاتك إلهي رميه ولا ترفعوا أصواتكم عدكينا كرها وقالنا فوق صوت النبي هذا عدك النبي قيدينكو كسر ريسينيا ولا تجهروا له نبي كرها وقالنا بالقول هذا كهر عدكوها كنوا هذا كجهر بعضكم لبعض سيدا قاركين باء قارك كلا كروا قال أن تحبط أعمالكم سيان عملكين وبرين وأنتم لا تشعرون إذنكو أنقرانين. صلاة آيات كسوة الدوحة علماء التفسير كنت المامان إنه وفتوية من النبي عليه الصلاة والسلام غير تميمة وافتقاء لمن دورا كتشري مركي والنقني أيها النبي عليه الصلاة والسلام وطانين وعد مدح وقدق إلاني مدح الآن ما يقانو إسلام كويه إدي ميل شوكتبا إدين تولي الدنيا دو دبا أجهيسة ومدح وإن يشانو كانت بين جرتاه. أصحابنا رضوان الله عليهم وليبا قوله سالة تلينت أبو بكر يا عمر يا أي قصه الرئيه نبي قدير ديكتاتر ما هينا ولا تشنشري فكرنا وحبك ويدين شري مركا رأي بحنتي يجيبنا ينبى أبو بكر يا عمر يسكو يراعي العريين أبو بكر وحو الله ينك هذا الله إذا مضح كذي عمرنا وحو الله ينك كلام مناسب واحد مضح كذي نبي قرام وراني وسيرة ذي دي شقة إذا محايد السوق ريا فرايقا قلنا سكا عبوسه ودغيسنا يا تلاو كقادنيا النبي عليه الصلاه والسلام عدكي با كرو كعي xogaa way muran yar gashay Abu Bakar iyo Umar baa midibad kale yiri ana adii jeeda iyo meetaydun baa doonaysa inaad u jeedayleen waa bani aadam oo isweydaar kuwa iman karaya hadalkii haduu kor u yara kacay aayadkana Ilaahay uu ku soo dajiyay adabta loo celinaya iyo anshaxa wanaagsan ilaaliyaan oo aanay ka tagin waxa laga sugayaa Ilaahay قوانك waxa laga sugayaa Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam hawshan cid loo dirayo haday kala soo jeediyeen inay ka aamusaan baahideen ee murmaan ma yahay oo mid waliba uu doono inuu kiis sii socdo taasi mid lagu qabsaday weeyo marka lagu hakiyay talabaadna waxa way codkan kor u kacay codkoo dheeraada iyo qofku bowleeyo oo buuqa ma aha inuu qawi yahay oo xoog yahay ma say Soomaalida aaminsan yihiin ama qofkaasi shakhsiyad uu leeyahay waa nooc jahli iyo reer baadiyenimo ay muujinaysa dadkeena waxay midiba midka uu ka qaylo dheeriyo waa taad xalajaada la mari laada qaylada faraha badan ay soo baxday iyo meesha wax lagu iibinayay saylada dadku waxay moodaan in waxan ama uu xoog yahay ama uu xarfad yahay ama laakiin waa arin gaaliya islaamka aanay jeclayn weeye codka noocaas kor noqonay la tuqaddimu bayna yaday Ilaahi wa rasuulihi xukuna rabbi ya rasuul qolayn maya inuu qof muslim ama dad islaam ka soo fulo diinta Ilaahay kitaabka iyo sunnaha looga dambeynaya Ilaahay iyo rasuulku waxay ka go'aan gaareen baa looga dambeynaya wax walba laakiin ha kala horumarina xukum iyo xeer iyo nidaam iyo talaan rabbi iyo rasuul golayno ka soo horjeeda inay dadka muslimiinta soo jeediyaan ma qof iyo wadartooda toona lama ogola cod kala kor ha u qaadin idinkoo kanabiga ka sarreysiinaya cod iyo dabcan qowl waxaynu kala qaadaynaa codkuna waa dhawaaqo qowlkuna waa erayada
وعدكي إريادا الحاوي الفاطر هاي لك لفهمي مركا دتك عادي يا نبي كلا صاع عليه الصلاة والسلام صافيت ومركا لو يرى يا نبي الله يا رسول الله إلا يدعو يا محمد عن الأوراني مركا الله هذا أدبتي سواء النبي هذا عليه الصلاة والسلام مركا إلهي با رسولك صلى الله عليه وسلم سيد الله لدق ما يعيمه حتى تنال على أصحاب قاركود وعدكود وكرو يرقى هذا الشيء سيد ثابت بن قيس وقال إنه هذا وروري dabeedna muddo gurigiisii ka soo bixi waayo markii uu nabigu weydiiyeyna waxa la ninkaasi wuxuu yiri camalkaygii baan u malaynayaa inuu burayo codka nabiga kor ugu qaadi jirayo sidaa darteed waa murugaysnahay oo inaan naar galay baan u malaynaya markaa nabigu wuxuu ugu bushaareeyay inuu janno galay ee aanu naar galin kor haddii dareenkiisu heerka gaarsiisan intii ka dambaysay dadka asxaabta ay kamid ahaayeen Abubakar iyo Umar iyo codkooda hoos u dhigi jireen ilaa uu nabigu maaragtay istifsaar sameeyay oo lahaa maxaatiri heelo maxaatiri bal codka kor u qaad إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين كوبوا إلهي يغضون أصواتهم عدكوا هاسو دغيا عند رسول الله رسولك أكتيس أولئك كواس الذين كوي امتحن الله إلهي أوهفي قلوبهم قلبigoodu hufay litaqwa alla ka cabsigu hariye uu hufay ana qalbigoodii waa la imtixaanay shayga hadii dahabka la imtixaano ama lacagta la imtixaano wixii qushihina uu iska tagaa wixii saafina uu soo haraa marka qalbigoodii baa ilaahay u safeeyay alla ka cabsigu safeeyay lahum maghfiratun wa ajrun azim tabidaaf bilayn ya bal marin weyn macnaha ilaahay uu ku hambaliyay waxa weeye iyagoo amarkii markii la qaatay iyagoo taladii adabti loo tilmaamay kolkiiba uu hoggaansamay oo si camaliya oo waliba xeel dheer u fuliyay taas ilaahay ku amaanay ilaa adoonnimada macnaheeda asaas إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك كوا قاغا نواقيا من وراء الحجرات مخسنة الدمدودة كوا قاغا يرى أكثرهم من تود البضاني لا يعقلون وحبقر المايا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم يجوا صبروا أتيسوا لهاين حتى تخرج إليهم جاروا الصباح لكان خيرا لهم ويونا السنان لهي والله غفور رحيم إلهي ما دنبغ الناصية ونحريسنا يا دومي سكيو طوبت كان ونحريسنا وانتي رير بادية هذا مركي النبي قوي ماتين عليه الصلاة والسلام أيضا هذين كلا قران ماينو مقصنا لا يسكو دولو حاسسكي سميتك وكتيرو ونصباقهم وكرم بانو يري دونا مدن بوداك صابحية مدن بوكا صوت ظاهري انكرو قيلنا بيلا محمد أوبي كلين مركا حافظها الدبدودة كاسو أنا دفت كفيعني iyo la dhaqanka nabiga toona calayhi salaatu wasalaam sida uu la gudbanaydna waxay ahayd inay iska sugaan ilaa intuu nabigu soo baxay calayhi salaatu wasalaam ka waxa sabirka la yiraahdo in cilmiga iyo xikmadda loo sabro waa qayb aad iyo aad muhiim ah waxa jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yimid xaaris loo dhan jiray dadkii soo islaamay oo markaa islaamnimadiisu ay hagaagtay doonayeen inuu manduub noqdo qoladiisa macnaha mid wakiil waa nabiga oo sakada iyo wixii waajibaadaya dadka laga soo qaaday ka soo qaada intii isaga ahaa waa diray nabigu wuxuu taariikhdu marka ay bisha tahay ayaan ku soo dirayaa cid sakada arooraysa ka soo kaxaysa ee dadkana diinta bar oo si gaarsi oo islaamnimada ugu yeer waqtigii kolkii uu gaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam ninka uu diray ninka waxa uu leeyahay hebel u tago sakadii ka soo qaado waa sida qisooyinka ay maaragtay in badan طريقته كسر نقنقنيس وطرق كلا دوام كسر كسر تفاصيل مركا سكدي كسوقا نكي حارس لورنج حارس النظرات مركو دبنا نكي حوغا يرسو علي ايا وحن دقالدي iyo fitankii qabaa'ilka soo kala maray waqtigii jaahiliyada wax iska hawl badan wuxuu xusuustay godad meesha ka taalay reerkooda ka wuxuu ka baqay in dhibaato ay ku timaado dabeetana xaqiiqadii muu sheegin waxbuu yara maluuqay nabigu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam isagoo sheegay in ninkii uu arrinkiisa isbedelay islaamnimadii uu ka noqday sakadii ay diideen ee warkiisa halkaa marayo
riwaayadku waxay tilmaamayaan in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu doonayba inuu ninkaa waxyeeleeyo col u diray dabeedna waxay iska hor yimi colkii oo sii socday iyo ninkii oo sakadii soo wada waa laba aad u kala fog weeye ninkiina kolkii uu gartay in wax isbedeleen ayuu yihi malaa nabigii baaba ku calooday bal adiguba kaxee xoolaha kol haddii cid uu kusoo diri waayo colkii oo sii socday iyo isagii oo sakadii soo wada halkaasaa dabeedna ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey iyadoo nasku kollayba uu tilmaamayo war marka ay noqoto in la hubiyo oo ciddaasina ay noqoto cid looga qaateena waanay ahayd ficlan oo nabiguna calayhi salaatu wasalaam warka waa akidi jiray asxaabtiisa iyo ummadda islaamkana waxa ilaahay uu ku badbaadiyeyba ama diintan ba alla uu ku ilaaliyay waa warkoo la ilaaliyo cilmu dhan oo cilmu lisnaad walistilaax la yidhaah ayaa waxa uu ka waramaa un warka war cidda ugu horeysa caalamka waa dadka muslimiinta ah waxa uu lahaa cabdullaahi ibn mubaarak lawla alisnaad laqaala man shaa ma shaa alisnaadu min addiin bu sanadku waxa uu ka mid yahay silsiladan la taxayo qur-aan iyo xadiisba loo taxayo oo qur-aankan dee quraa'ada sidan masaaxifta markaa inoogu qoray mid waliba sanad buu abtirsanaya tawaaturay oo cadad aad u fara badan uu ku warinaya ilaa uu nabiga kale calayhi salaatu wasalaam xadiidka waa saas oo kale alisnaadu min addiin bua walowla alisnaadu laqaala man shaa ma shaa sanadkaasi diintu ka mid yahay haddii aanu sanadkaasi jirin dee qof waliba wuxuu doonu iska odhan lahaa oo imika tilmuudkan yahuudda iyo baybalkii nasaarada midna sanad ma leh abtirsiima ma laha laakiin diintan islaamnimada qur-aan iyo xadiidka abtirsiimay leedahay marka in war la sugo waxa ay keenaysaa in xaqaa'iq la helo in go-aan wanaagsan la helo in dadku badbaado in wax waliba xaqiiqadooda ay kusoo noqdaan maantana waxaan wikaalaadul ambaa laydhaa ee wararka warinaya dee intaasoo jeer bay maluuqayaan ay isweydaaranayaan siyaasadahoodii iyo buunbuuniskoodii iyo beenahoodii baa dhex qaadaya beentii faraha badnayd ibliis marka in la iska ilaaliyo waxa ishaacaadka laydhaa iyo war in la yidhaahdo wuu yidhi baa la yidhi wakariha lakum qiila waqaala taas way iska badan tahay dadku aad bay isu xiseeyaan war hebel maxaad haysaa war aloo laguguma warramo markay isla ag fadhiistaan wuxuu ka kalena wuxuu leeyahay ma hube waxaasaa la lahaa dabeetana waxaasaa la lahaa unbaa wareegaysa يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إلهي باوحى يا أيها الذين آمنوا تذكى الله رميه وإن جاءكم هدو إذين ما فاسق مد آن wargaleen ahayn binaba in war hadduu idin la yimaado idaan rur sheegayn fatabayanuu hubsada aimada qaarkoodna waxay akhriyeen fatathabbatuu akida oo cagadhigta oo suga an tusiibuu si aydaan u waxyeelaynin qawman bijahaala qola si aydaan ugu waxyeelaynin war moogaan ila haddii daameyskiiyo dhibaatadiiba ay dhacdaba waxa iman doona markaas tan ilaahay u sheegay an tusiibuu qawman si aydaan qola u waxyeelaynin bijahaala dhibaato ee macnaha war la-aan fatusbixuu dabeetana ay idin noqotaan calaa maa facaltum wixii aad samayseen naadimiina kuwa ka murugooda didee markaa gacan la saari lahaa qolada iyagoo islaama didiyadooda la bixin lahaa kafaarana way iman lahayd arrimo badan baa soo kordhi laha fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin waa kii dee khaalid colaal uu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam qolo weeraray markaasay tawxiidkiibay ku dhawaaqi kari waayeenoo way ashahaateen laakiin may hagaajinin waa kii markaa cid ka laayay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa waxaan kaaga bari noqonaya ilaahay waxa uu khaalid sameeyey ayaan kaaga bari noqonaya magtoodiina waa la bixiyey واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا waxa ogaataan anna fiikum dhaxdiina inuu ahaaday rasuul allah rasuulka ilaahay inuu idin dhex joogan ogaada marka wax badan ha loo kaadiyo hana la hubiyo isagana ha loo celiyo law yutiicukum hadduu idinku yeelo idinka aqbalo fii kathiirin min alamr in badanoo arrimaha soo jeedinihiina way badan yihiin iyo talooyinkiina iyo wax badan hadduu idinka qaato lacanigtum way idinku dhib badan doontaa laakiin wax badan markaa isaga ka sugtaan
quraan baa soo degayo waa laydin dabcin doonaa dadka waxa ugu shar badan ka su'aalihiisa sharci laga soo dejiyo dadka su'aasha darteed wax loogu waajibiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu yiri ilaahay xad buu idinku waajibiyay minuunu soo booday ee uu ma sanad walba uu nabiga calayhi salaatu wasalaam inta muddo kadib aamus ee uu maaya fil umri marra haddaan odhan lahaa sanad walba way waajibilayd mana idaan karteen ii kaadiye su'aala marka la calinto waa dhib mudan lahayde ولكن الله إلهي حبب إليكم الإيمان إيمانكم إذن تعليسي ونعمة وين وزينه في قلوبكم قلبي إنكم قرحي إيمانك وكره إليكم محيد النحسي الكفر قال لماذا والفسوق ألا كفقاشا والعصيان فلاقا لماذا يضا إلهي لقى فقال أولئك كواسي انت آخر إلهي وسي انت اندن بلادنا إلهي وكإلهي هم الراشدون وأقواها نوسا قفا نوسا هدا دونيس وقفك إلهي قال لماذا حمانتي هذا وكإلهي إيماني وناقي سنة وصلحي أو على قلبي فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله والإراد الله حقي سكا هذا ونعمة برواقه والله عليم حكيم. إلهي بأوح البوكسون الشيء والبحيق مضيالة ففضل إلهي هي النعمة ده النعمة هي فضل الدونيس دنيا لها لا لقما ورميني لكن هو الدين هي إيمان هي أخلاق هي ألا كدوانشو انت سائلها وكنت الماوي فضل إلهي نعملي سنة وعلى كرد نسك وكوحصي هدنا تدك مسلمين تهدي قاركول دباتا يدحل عواب الصدا لا يستقحل صار يحر كفت الله لميني هيا نسك وحصي مركا وأمورة اجتماعية تدك مسلمين تهدحلو ده إلى إسلام كوادية والعلاقات الاجتماعية بين المسلمين هي دين قار كميدا كوانا آيات كترنا يعني كميدهين أي إنه حصنا وحا كميدا إنه نبي قتيلي عليه الصلاة والسلام إن تدقوا أي كلا تقال لما قفتوا حسلي رسيقا يو أفكي صبورا يعني تيبوا مولا هدلا يعني مايا تاوالا ديلي وحنا ربي وكسي فيددك مسلمين تاين يسد بحسينهين أو أي استعيدهين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وضل استعال رسولك وحليل عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث صدق الشوح كبضا إنه قفه ميت كلاو عليه الصلاة معها صدق لا عشاء هدي أي صور عفان وأنه متكوث كلا سلامة هديه مركا يساقو ديدو كلا سلامة يساقا لا وريلية وكا كلا وحي ولا روري يكريبية وصدا وكاحل بحيا استاس عذردار شرعي هديه وجره وقفكني قف مفسد وياي أما أنت لا قادنين أما بدعولا أما بلايا بدن ولا قلت كذا عبد الله بن عمر سوى قول كاتل سنة أما أركض إنه عاصقاتي إنما دي سميت كمدان الله على البعض حديث بو إن نكون حديدي تنا إن كيف هذا السؤالي حديث بو شاقي ابن عمر حديث كيف قادم واي كل هذا الحديث كيف قادم وإذا نور ما تيجي وضعت لي بمين إصلاح ذات البين أي آيات كي نقول رجالنا فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رسول كوكا ورنا عليه الصلاة والسلام سقوله ورميد تستيا وحكفي عنه معناه لقوا قال يدرجو كقيمة بدنت لقوا قال درجة الصلاة الصوم كي الصدقة هتيها هاي لهذين أو مدة لحدود الهجاتي يبغوا وضدك مسلمين تا قبائل كودية كوحودية الشخصيات كودة dadka muslimiinta wuxuu ku faa'iido dhexdooda martana wuxuu nabigu ku tilmaamay al-xaaliqa waa tii xiiraysa oran ma yagtima xirta laakiin diinta xirtaan waxa arkaysaa aayadka iyada ilaahay uu xaraantinimeeyay waxa la yiraahdo sukhriyada iyo jees-jeeska sida aynu arki doono markaas asxaabta qaar kood baa arkay iyagoo saxaabigii la oran jiray Abdullah ibn Mas'ud oo nin gaaban oo madow ahaa xoogaa yar weyda qofkuna markuu gaabnaan iyo weyd isku darsado kuwa dee xoogana dhaadheeri oo sundaw yar jallaaca عبد الله بن عالم وعلم بدن بوها أصحابته ركملة ودمدي سادو دوبنا مرة أركيه قص سلا وإيجي قاركود حدا تعجبون من دقة ساقي ريالين ورمحا عبد الله لا يأتن ودمدي سادو دوبنا أيا كوكس ليسان ما هو سويسان ميسان كإلهي ويكجع عروسي بورتو بورتو هدي لميساني هدي لبدي سا رافع يرير لميسان وآخر وينان يامو همسي جاي لمسي أيا لديدا أينو أركي دونا وحلا يرادو عيبين تدخل العيبيو يعرض قوة يشرف وضو من لغنعه عبد الله بن عمر يستغى عوض أكفر ساوي يا وحولي ما أعظم حرمتك
ما أعظمك وأعظم حرمتك بدوينتي كعضي حرمة دونات بوينت لكن قف مؤمن كحرمديس أيوم باكاسي وين أرنتي أنا تجاري كريم تردارن كي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الحلقة هاي ونوقتلي